aad baad u mahadsantahay marka hore. Marka labaad, ilaahay ha u naxariisto dhammaan dadkii ku geeriyooday qaraxii Soobe 29 Sebtembar lasoo dhaafay ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Waana Octobartii kale oo shan sano kadib oo 500 oo qof ay ku geeriyoodeen qaraxaas. ilaahay sabri iyo iimaan ilaaha ka siiyo dadkii iyo eheladii qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii meesha maaragtay ku geeriyooday. annaga Soomaali haddaan nahayna xaqiiqiyan waxaa dhaqan inoo noqotay ilaahay ha u naxariisto. waa sax, waa wax wanaagsan ilaahay ha u naxariisto, laakiin ilaahay ha u naxariisto oo ficil oo hal dhinac loogu soo wada jeesanayo uusan jirin dhibaatadeeda ay leedahay. cid diyaar u ah ma jirto mar walba inay geeriyoota. waxa meesha ku geeriyoonaya waa dhallinyaradeenna. qofka biniaadanka xaqiiqdii ruux walba oo dunida joogo waxa ugu qaalisan oo nolosha uu helay waa fursadda ugu qaalisan waxa waa inuu dunida imaaday uu dhashay, kadibna uu helo beeco xasiloon oo degan oo nolol iyo mustaqbal qurux badanba uu ku samaysan karo. marka arrimahan oo dhan waa runtii waa arrimo qiiro leh oo naxdin leh in dhalinyaro iyo dad Soomaaliyeed meesha lagu waayo. dhalinyaro markaan ku leeyahay meesha dad waayilo way ku dhinteen, laakiin dee ummadda Soomaaliyeed boqolkiiba 74 waxay ka yaryihiin 30 jir. dad waxay ku tusinaysaa inay dad wada dhalinyaro yihiin dadka meesha ku geeriyooday, inay mar walba badan yihiin dad dhalinyaro ah oo xamaalanayo oo soo shaqo tagayo. dadkan aad u jeedid lagu leeyahay hooyadaya meesha ku dhintay, aabiyaa ku dhintay, waa dad dhalinyaro ah. 40 jiro waa 50 jiro waa midka ugu weyn. dadka Soomaalida waa dad aad dhalinyaro u ah inta badan, ma ahan dad waaweyn oo maaragtay xaqiiqdii nolosha culayskeeda iyo dhibaatada ay leedahay wadanka ka jiro ayaana keenaya qofka inuu cimri degdeg uu ku dhaco oo maaragtay dowlad iyo mas-uuliyad iyo kaalintii dowladnimona totally way maqan tahay oo meesha kama jirto dowlad. wax dowlad la yiraahdo dowlad waxaa la yiraahdaa markii dowladda ay la timaado mas-uuliyadda badbaadinta nafta iyo hantida muwaadiniinteeda. dowladda inay la timaado khadamaad service oo bulshada ay heli karto, oo servicekaasna uusan ahayn mid dad gaar ah oo keliya ay ku munaafacaadaan, wax ummadoo dhan ay u wada siman yihiin oo xaq ay u wada leeyihiin. madaxda Soomaaliya maanta soo marto intooda badan waxay ku yimaadeen nidaamkan dulleysan 4.5. nin 4.5 ku yimaadayna waa dareemi kartaa meesha waxa keensada waa cidiisa, waa dadkiisa, cidda wax u qabanayna waa dadkiisa, ma ahan dad kale. tusaalooyinkaasna ma ahan mid aan hadda aad u baahan tahay inaan sii fasiro oo aan sii kala dhigdhigo, oo waxaan wada aragnay aan wada ognahay. adiga iyo hor fadhiya waad ogtahay, aniga waan ogahay. xaqiiqdii maxay ahayd oo wax sida keliya loogu gudbi karo dhibaatooyinka in haysto abaara hadday noqoto, amni xumo hadday noqoto, waa in dowladda ay nidaamkeeda toosisa, ay dib iskugu noqotaa, ay tiraahdaa war waxaan nama anfacaya, waan ku daalnay, sideen macnihii mataqaana maaragtay maxaa la yirahdaa aan u bedeli karnaa oo nidaam loo wada dhan yahay u samaysan karnaa. inta badanna waxaa marsiisa laga dhigtaa doorasho oo ama nidaam xisbiya hadday noqoto ama nidaam maxaa la yirahdaa kala lama qaban karo amni darteed. waa been, yaan lagu sheegin waxaas. madaxweyne ay soo doorteen beeshiisa xildhibaan ka dhigatay oo kadibna kursigaas u tartamay oo baarlamaanka doorteen oo 200 ilaa 300 oo baarlamaan oo keliya ay doorteen, iyo madaxweyne 1 milyan oo qof ay doorteen, kee kula qiimo badan? madaxweyne 1 milyan qof ay doorteen ayaa qiimo badan, sababtoo haddii 1 milyan ay doortaan hadda 4 sano kadib haddana waa loo sii diyaar garoobi karaa doorasho kale oo ka tii hore ka qurux badan. muwaadiniintana marka ay doortaan madaxdooda waxay bilaabaan inay la shaqeeyaan. waa haddii madaxdaas ay kaalintooda mas-uuliyadda ay ka soo baxaan, ay yiraahdaan okay kaalintiina waa inaan ka soo baxnaa, shacabkaana soo doortay. sababtoo shacabka hadday ayaga dowladnimadii ay gacanta ku hayaan, qofka madaxda u noqon lahaa ay ayaga dooranayaan, ogow madaxdii waxay madaxooda duldhiga hoos dhigayaan waxa waaye waa shacabkay cod u raadsanayaan. shacabkiina markuu cod dheer uu ku hadlo uu yiraahdo dhibaatadana in hayso, isla markiiba falcelinaa meesha ka dhacayso. laakiin haddii ninkan uu jeebkiisa ku imaanaya ama niman odayaal ay soo dooranayaan oo nidaam dulli ah oo sad bursi uu ku imaanayo, ogow shacabkana lama shaqayn kara. xagga amni hadday noqoto,
canshuur inuu bixiyo ma ogolaan karo maxaa yeelay dowladdu waxaad canshuur siin kartaa xitaa markii adiga amnigaaga ay asturi karto ay hantidaada ilaalin karto maxkamadaada markaad u tagto dhul ama boos laga qaato oo si xaq leh aad waxaad ku heli karto marka mar kale waxaan kaga tacsiyinayaa dadkii ku geeriyooda ilaahay jannada fardoos ilaahay ka waraabiyo maxay ahayd waalidiintii iyo annagaba way naga geeriyoodeen waa dadkeena ummadeena oo hilbahooda darbiyada laga soo guraayo waaye ilaahay jannada ka waraabiyo ilaahay samir iimaanna naga wada siiyo dhammaantiinba aad ba u mahadsantahay